sida la sheegay cawada waa cawada baaldeg loo dagaaldagayo guul taariikhi ah oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed dhamaantiis meel kasta uu joogo midka ku nool jamhuuriyadda iyo midka aan ku noolayn jamhuuriyadda intaba guushaasna waxa dhamaanteen ay tahay inaan si midnimo ah ugu dabaaldegno maadaama xaqiijinta guushaas xukuumad shacab iyo dawlad intaba ay ka qayb galeen sidii loo gaari lahaa guushaas waxa wax ku leh oo kaalin ka qaatay dad Soomaaliyeed ee America markaas joogay oo isxilqaamay waxaan xasuustaa gabadha keyska dacwada gacanta ku haysay xoggeeda Muuna Sharmaan oo halkan ugu mahad celinayo yaa waxa ii soo diray madaxweyne Xasan Sheekh markii ay dacwada la geenayo badda way la fadhiisatay waxay tiri wasiir maxkamada u soconaa mana rabnay tiri wax kadisa inay nagu soo baxaan oo dawladda Kenya iyo looyaradeeda wax kadis ah oo annaga aan ogeyn inay nagu soo baxaan marno waa caadi maxkamad marka ka garamayso waa ina wax walba ogtahay marka waxay tiri wax kasta oo dhacay maadaama dadkii keyska ku lug lahaa ka mid tahay noo sheegay tiri waxaan fursad u helaynaa inaan ka diyaar garowno waxaan ku yiri Muuna ay dhageyso waana maqlaysaa waana maqli doontaa waxaan ku yiri wax haba yaraatee dawladda Kenya qof ka tirsan madaxdeeda ama aan ka tirsanayn keyskaas nagu dhex maray oon ahayn maalintii MOU-ga aan saxiixay ma jirto لا تكس مسج اسكو درنا لهلين ولا ايميل اسكو درنا لهلين ولا مينتس فدي ايلنا لهلين وحبا يراته waxaan ku ashur gareynahay iri inay dawladda Kenya wax ku saabsan arintaas aysan helaynin maalintii aan ku dhiiranaynay in badda Kenya laga dhiciyo oo MOU-ga aan siixno oo madaxweyne Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid oo xukuumadda joogay aniga dalka dibadiisa aan ku maqnaa dhowr jeerna waa sheegay kaliya waxa la soo diray MOU-ga golaha wasiirada mandate-kiisuna ahaa waa la socotiino saxiixda caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ama prime minister-ka baa dawladda u saxiixi kara labadaba maadaama ay si joogin power of attorney wax la yiraahdo ayaan ku saxiixay kama shakinin dawladdeeda golaha wasiirada inta fadhiista qalad isku raaca marna iguma soo dhicin inkastoo ni sharciga wax ka yaqaan ahay oo khabiir ku ahay sharciga badda laakiin at least 8 sano sharci darsahay wuxuu garan kara takiskana very simple ah waxa ku qoran laakiin waxa soo dhow waxa ka muhiimsanaa in dawladda aaminay oo go'aan golaha wasiirada uu gaaray sida hadda Barso Jawaari uu sheegay dawladda Norway iyo wada Cabdallah wada socda yaa u yimid dawladda oo ka talasiya arintan inuu deadline ka dhacayo waqtiga dhamaanayo hadana MOU-gaas la gelina badayni international ku biirayso badaha caalamiga oo gacanteen ay ka baxayso inuu si fiican u faahfaahiyaan jeclaa iyo sababtoo ah MOU-ga baarlamaankii 8 diiday kii 9 soo celiyay Jawaari waa ogyahay MOU-gii baarlamaankii 8 oo diiday oo sida qaladka ku diiday baarlamaankii 9 Jawaari maaxda ka ayaa soo celiyay sababtoo waa loo baahlay waana midka maanta loo baxsaday oo dacwada bayso halka saac ay hadlaysay qaadiyada maxkamadda go'aanka ridaysay waxa sal u ahaa wuxuu ahaa MOU-ga iyo dadaalkii looyarada saas daraadeed waxaan ku raacsanahay in dawladihii iska daba xigay iyo baarlamaanadii iska daba xigay iyo xukuumadii iska daba xigay qof kasta inuu ku lahaa kaalin lagu daro xataa midda hadda joogto oo farmaajo madaxweynaha ka yahay sababtoo ah بريشر بدنا لو ساري إنه دعوة سؤالي وهذا هذا البرنامج كان لقاله لكن مو سيلي حكومة دي إسكدم بي ورزار خير كيجو يو رئيس الوزراء هذا إنك جو رابله يأصل مدحوناها برلمان كيبا قف كديرته سؤالي سمجرين تاس نفته وحكم هاسين إن كارين تاس أي لهاين مدحون عشان شيخ سيدو كله نكي كدير هذا دعوة إنه جاي وحان حشكو أمانة وحاكمده
EEZ keena EEZ economic zone keena proclamation ma lahayn markii aan ka dacwoono kalluumaysiga sharci darrada waxaana la dhihi jiray EEZ kiina declared ma ah kama diiwaan gashan United Nations asaga diiwaan geliyay shirkii London yaan kala shaqeynayay xafiiskiisa markaas la taliyo ahaa EEZ ka lagu soo daray madaxweyne waxa iri bahalkan ama ku guuda anaga horta ku guubanay war ka leexow dhahay dad Soomaaliyeed wixii ku jiro waa la sameeyna inuu ku dhiiraday aad iyo aad aan runtii uga mahad celinaya guushaan marka guul la wada leeyahay waaye haday tahay dawladii oo Sheekh Shariif madaxweynaha ka ah haday tahay midii Xasan Sheekh oo madaxweynaha ka ah haday tahay midii hadda oo Farmaajo madaxweynaha ka yahay laakiin anaga dawladeena hal waxay dheer tahay masabidka iyo baanta anaga Sheekh Shariif iyo Umar Cabdirashiid guusha waxa ka wada keenay laakiin masabidka dadka dheernahay saas daraadeed nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri aniga waxa la mid ahay anbiyada guri dhisan oo kale oo hal mutuleel hal maaliira baalka labinada waxa la yiraahdaa bulkeet hal bulkeet oo ka maqan yahay aniga bulkeetiga oo dhahay marka wuxuu dhahay buuistu li utammima makarim al akhlaq ani waxa la isoo diray u dhahay akhlaaqda teeda wanaagsan inaan taamiyaalo inaan bilaabo ma dhihin adduunka sifiga ilbaxan wuxuu ku dhisan yahay maamulkii ka horeeyay inuu appreciate garay oo ka mahad celiyo guushi oo gaaro oo wax ku dul dhiso taas adduunka ilbaxa yaqaana diinteena xaniifkan nabigeennana taasay taqaanaa cidii ka horeysay waxay qabatay si adiga taada loo appreciate gareeyo in adigana midii ka horeysay appreciate gareys waa dhaqanka suuban runtii waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan waniyo 12 sano lagu haraamayay si ku adkaysatay waxa markasta fiirinaya marka aniga baan abuurka ifkiya la yiraahdaa meeshaan ku soo gabagabeynaa qisada sayidina Aisha ku dhacday wala wada socotay laakiin ana xasuusinaya ayadoo safar la yahay xogaa inta banaanka aaday reer safarkiina oo degay nabigeena la socdo kaleey salaatu wasalaam ay gees u baxday ay waxay aaday inay soo xaajeysato banaanka ayadii haween kale markii soo noqotay iyo waxa isku aaday safarkii inuu dhaqaaqi rabo kuul ay lahayd xogaa yara qaali ahayd oo musallam ay ka soo deysatay ama ka soo isticaaraysatay ama ka soo tabalcaaraysatay yey weyse meeshii ku noqotay marka safarkii markii soo noqotayna waa tagay marka waxay istiri intaad lugay lahayd meeshaada sug waa lagu soo noqonaa nin saxaabada kamid oo Safwaan la yiraahdo oo socda yaa ku yimido sii qaaday markuu arkay inay tahay umul mu'miniin Aisha ninkaas nabiga kaleey salaatu wasalaam inta badan uu reebi jiray si uu safarka wuxuu ka soo tago oo u soo arooriyo markuu qaaday munaafiqiintii maxaa ku taqaanaa oo ay safarkii ka daba tagtay Abdullah ibn Salul nin la yiraahdo ibn Ibrahim Salul wuxuu yiri wallahi Aisha iyo ninkan Safwaan waa kala xaaji guteen دعايدي وفافي مدينة وداني قبست عائشة بؤجا ويحنوست سفر كي كدا لنيت أيضا كشا كان صحيح بخاري قصة كتالا ويحنوست جوري هذا إسكتكت مؤجا مركب واحد لقى شيء السوق دعايتها لو دن مؤجا لكن مجال ذي دن السوق يوحي على كلا وضع اللي أساس على عادة ما أركت أساس ميش صعبة حتى قاروا وين بدك عليه وكدر صومي بس مالين وحيس راعين هوين كله ayagoo banaan ku soo qabaysanaya markii xanuunka ka kacday gabadhii la socotay xogaa yara turanturooto markaas ay tiri gacanta qabatay markaas ay tiri bi'sa wiilkeeda ma xasuusta magaciisii bi'sa masya mastax bi'sa mastax ay tiri balaayaa ku dhacdo mastax wiilkeedii waay markaas tiri maxaa ka rabtaa nin badar xaadire ma wiilka badar oo dagaalkii badar oo xaadire waxaas inuu ka faafiyo ma maqal miyaa tiri Aisha markaas ay naxday ومو حصل لي شيء ها ونبي ما أوجيه ها وأوجيه وأبي أبو بكر ما أوجيه وأوجيه ومجال ما لا أوجيه ولا أوجيه يتر مرك حغير وحكيش كيس مرك حنوصل النبي عليه الصلاة والسلام مر والبا وأسوق قلق مضح سلاح الجري ونحرس الجري حغا كما أرق وأسكع مرة وحولية ساتها بس قالوا يكسو تيري النبي إني حغير مضح سلاح يكويس بس قولوا هو يده أبي ده أدي هو يده سيدي هوين كلو يقاني قولوا مرك تكتي أبيه تيري أبو وحن محقق خريسين
أبو بكر وايده أبو بكر على عائشة وأختي هاي واحد محل يقري وين نحن لو ديبا ويسكويس هذيك مركي بالله مرة وحيجينا ودقة وحيجي ودقة النبي عليه وحي وكدقة النبي أنت لكن أرمى عائشة لك ما هلا سوقينا وحوس عضاء سيان عادي النبي مركي دم وحوعي أسامة ابن زيد يوحو علي بن أبي طالب وحي وحو مانع عائشة مكوكتين ما كانت لي ما يا رسول الله وحبكم مؤمن علي أمرك وحو يري جاريده ويدي قبل جاريده قبل هي ويدي النبي وحو مانع وليكم أرجيت عائشة أبي راته مركا نبي هو صباح يقول هبيد وقد بيمت هذا لو رح مركا وحو يري عائشة هدي الدم بيجي سميسان إلى أتوكان هدي هذا سمينين وحي كبري يلدون عائشة وين حدا مرك أبيد أبو بكر ترى أب وجواب محا وجواب هو ده هو يدي ترى وجواب محا وجواب هاي ترى النبي هذا اللي ترى مرك وحي ترى هذا عنده وحن ما سمينين يجروا ميسميسين يتر هذا إلى هذا واسميني يا يجروا ميسميسان يتري كاستان روميستين صوته الله بالله بالجلي وركي مكت عند هذا مركب وحي ويسي وح كجير لما أرك وركه أنا قرب يستاك حاجة مركي اللي جوجي نبي والله قبتي سيدي وحي أسود دقي جري تري قصة البخاري يكورني إذا ليدكي سيدي اللي قاني قرآن كي أسود هذه إفكي جوه تقانيه تضبطها أسود دقي ألا بري يعني أو وكرة مركب حجري عايش استاك النبي رالي قلي هذا علي هذا علي هكذا يا ابن يتر إله هذا علنا يتر يبري مركا الدونك بين أبورك وحكحن مجروب ولما وهكذا مركا ويسوقفك إلى هذا وروح عنك كمسؤول وما سنتي